hay-adda Red Horn of Africa ayaa deeq raashin ah oo isugu jirta bur, bariis, sonkor iyo saliid waxa ay gaarsiisay 70 qoys ee ku dhaqan deegaanka Landere iyo laba baalle oo ka tirsan degmada Goldogob ee gobolka Mudug. Deeqdan raashinka ah ee ay hay-addu qaybisay ayaa waxa soo dhiibay dad Soomaali iyo ajaanib isugu jira ee khayrka jecel ee ku dhaqan wadanka UK. Dadka raashinka la gaarsiiyay oo ah dadka ku xoolo waayay abaaraha ka jira deegaanka oo aanan wali helin xilli roobaadka guga ayaa waxa raashinkani ku wareejiyay wakiilka hay-adda ee degmada Goldogob Burhaan Maxamed Cali Xaashi. gaar ahaan hadda kuwaan halkan wax soo gaarsiiyay waa UK community, waa bulshada reer UK weeye. aad baan uga mahad celinaynaa raashinkii aad soo dhiibteen oo isugu jira bur iyo bariis iyo saliid iyo sonkor. waa soo gaarsiinay dadkii maadaama ay jireen dad aan af Soomaaliga fahmaynin oo xubno ajaaniba ah oo wax ka soo aruuriyay dakhligan maanta halkan raashinka aan ku qaybinayno. waxaan jeclahay inaan ayagana ku maqashiyo afka qalaad hadii Ilaahay idmo. Today, which is dated 2nd May 2017, we would like to appreciate the helping hand of Red Horn of Africa UK community and your generous gift to the people affected to the severe drought and famine. Your willingness to help those people will really have impact on their lives, which saves hundreds of people, of children, women and men from starvation. Since your donations have intended for water aid for the affected people and the rainy season has started, we have substituted food aid which the people are now in need. We have provided food for 70 affected families and is comprised of all the staple foods in the region, such as rice, flour, sugar, and cooking oil. Lastly, we would like to thank you once again and appreciate your contributions and kind donations. Many thanks and regards. Gudoomiyaha deegaanka Landere iyo laba baalle Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Goldogob iyo dadka deeqda raashinka ah la gudoonsiiyay ayaa u mahad celiyay hay-adda Red Horn of Africa. waxa kale oo mahad mudan hay-adda Geeska Afrika oo raashinka deeqdan soo gaarsiisay. waxaan cadeynaynaa anigu waxaan ahay odagii beeshaan. waxaan cadeynaynaa 70 qoys oo raashin ah Geeska Afrika inay soo gaarsiisay. dayac badan baa ka jira deegaankan oo ah inta la tiriyay iyo in kale ka hoos lamaan. hadda ceelku waa naga fog yahay, wax biyo gelinana ma haysano oo biyo gelintu waa ceelkaasan biyaha waxaan u doonanaa 500 mitir meel noo jirta baan u doonanaa. biyo gelin ma haysano, MCH male, caafimaad male, iskool male. dayac badan baan tirsanaynaa. waa dhinaca dawladda. halkan waxaan uga mahad celinayaa hay-adda Red of Africa ama Geeska Afrika akhri oo deeqdan soo gaarsiisay dadkan walaalahooda oo baahan oo xoolihii dhaafeen ayagoo ah reer UK. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. deegaankan iskuul ma leh, MCH ma leh. gabdhaha hadda halka hortayda ka muuqdo iyo caruurta inay muuqatay waxa ma ahan kuwa caafimaad hela iyo meel ay ka faa'iideystaan. waana meel degmadii iyo gobolkii labadaba u dhow. halka waxaad moodaa dayacaad inay ku jirto mas'uuliyiinta aniga iyaga sareysa. waxaan halkan fariinta aan uga dirayaa ay tahay dayacaad halka ka jidhay in la eego. nooteedo deeqda aan sida Allah waxa weeye waana soo gaarsiisay raashinkaas waa haysanaa. si wanaagsan u bixisay anaga reer Landere iyo laba baalle si wanaagsan u bixiyay nimanka raashinka. ilaahay waxaanu ka baryaynaa raggii noo keenay raashinka in ilaahay khayr iyo barako ugu bedelo. in ilaahay barako ugu bedelo xoogoodana ilaahay inuu wax ka dheefsiiyo iyo xurqoon wixii ay helaanba. hay-adda Red Horn of Africa ayaa horay deeqa uga qaybisay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan degmada Goldogob ee gobolka Mudug. Maxamed Cumar Afduub, warbaahinta SBC degmada Goldogob.